السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بعد يوتيوب channel كيغا في معادل فضلا دان ugu cusubtaa like noo saar subscribe iyo taawa kambalaalka furaad aad maasantahay gabadha magaceeda waxa la kunjum waa gabar aad iyo aad u xishood badan dadkana ma jecel laakiin mar walba waxay ku riyootaa inay noqoto gabar caan ah waxayna jeceshahay abka Inza inay ka noqoto caan Inza waa abka sida Instagram-ka oo kale laakiin maxay caan noqotaa ayada ma jecel la dhaqanka dadka ayadana isma fahmaan ayada koryoonayna dad soo dawardayaan wiil ayaa jugsiina dadka oo dhan way weynaysaa kadibna waxay dhahaysaa kunjum sidii hore oo kale aad ugu riyootay inay dad adiga ku soo dawracaan wax la mid ah wiil ayaa isku dayay inuu la sheekaysto laakiin wiilka la socday wuxuu ku dhahay qoftan dadka inay la sheekaysato ma jeclo kadib hadalkiisa ay ku qoslaysaa waxayna soo galaysaa fasalkeeda waxayna arkaysaa gabdho aad iyo aad u wada sheekaysanayaan oo saaxiiba ayadan midaas ay ka maseeraysaa waxayna ku fikiraysaa inay saaxiib yeelato mardhow waxayna isku dayaysaa abka Inza inay saaxiib ku yeelato oo caan ay ku noqoto laakiin midaas way awood weynaysaa wiil agteeda fadhiyay isku dayaysaa inay la hadasho laakiin asigu ma jawaabayo oona yasaya maadaama ayada dad inay la hadasaysan jeclaan wuxuu isdhahayaa kuma rabto kadib waxaan aragnaa gabar magaceeda Joy la dhaho Joy waxay gadoomiye ka tahay iskuulka ardayda oo dhan aad iyo aad ay u jecel yihiin abka Inza waxay ka tahay gabar caanka ayadana waxay leedahay saaxiibo aad iyo aad u badan saaxiibadeedna waxaa kamid ah wiil tababar fanaaniin ah wiliba fanaaniinta qarsoon asagan waa wiil aad iyo aad u qalbi wanaagsan dadka oo dhan wuu xishmeeyaa ugu dambeyn way soo baxaysaa kadib markay soo baxay telefoon ayadoo ka hadlaysa ayaa wiil gadaal u imaanay wuuna ku dirsanaya ayadan way xanaaqaysaa way isla xisaabeena oonaysa asxaabay shalay video waxaan u soo dhigay wax kalmaan hirgab ay ahay codka dhan ay xirmay soo maanta aan isku qasbayay kadib maalinta xigta iskuulka markay imaado koojo ayaa u imaanay wuxuu ku dhahayaa barasho wanaagsan waan arkay inaan jeclana dadka la dhaqanto laakiin aniga saaxiib ayaan naqanaynaa nambarkiisa ayaan u qorayaa waxaan ku dhahayaa qofkii ku dhiwaaniga ii soo sheeg aniga waxaan jeclaan lahayn mar walba isla socono aydan way farxaysaa maalinta xigta dhan hadaladiisa ay soo xasuusanaysaa ugu dambeyn waxaan ogaanaynaa konjooyada inay ka heshay maalinta xigta markay imaado iskuulka waxa lagu dhahayaa maxaad u xaday aydan waxay dhahaysaa maxaan xaday ayagan waxay ku dhahayaan roosetada adiga ayaa xaday sababtoo meesha adiga ayaa gabdhahan la fadhiyay ayadan way hadli weynaysaa kadibna konjooya u imaanayo waxaan ku dhahayaa gabdha ciyaarta naga daay roosetada idinka banaanka uga soo tagay gabadhan maskiin waa maadaama idin soo dhaxgelin miyaad dulminaysiin gabdhahan weeraal gelinayo ugu dambeyn gabadha kale way ka xumaanaysaa sida oo la hadashay waxaan ku dhahay saaxiibiga raal noqo aydan way ku farxaysaa waxay ku dhahaysaa caadi waay konjon wuxuu ku dhahay gabadhan way qalbi wanaagsan tahay dhibaatada ka dhaafa fadlan aydan asaga ay fiirinaysaa maadaama mar walba uu difaacayo maalintaasna ayadoo faraxsan ay iskuulka ka soo baxaysaa markii meesha baska lagu sugayo fariisatan waxay arkaysaa mobilkaas markay fiiriso waxay ogaanaysaa abka Inza inuu ka furan yahay abkaas oo qof walba isticmaalaya bashqadiisa u soo dhacayso kadibna abkaas waxaan ka ogaanaynaa sirta konjo wuxuu ahay wiil aad iyo aad u wanaagsan waxaan laga jeclahay jaamacadda oo dhan ugu horeyn maalinta ugu horeysay ee fanaaniinta qarsoon la arkay meeshay ku kulmayeen ayaa waxaa lagu arkayaa konjo asigoo soo galayo maadaama wariyaal gabdho meesha ay joogeen konjo ayaa waxaa laga qaaday sawiradaasna waxaa la soo dhigay baraha bulshada oo dhan asigoo lagu qorayo towbaraha fanaaniinta qarsoon markay ogaadaan iskuulka dadka la dhigtaan mar walba waxay ku casuumayaan ciyaaro iyo waxyaabo badan maadaama uu yahay nin guuleystay macallimiintan mar walba u hambalyeynayaan maadaama hore uu guuleystay sidaas darteed ayuu caan u noqday laakiin sirtaas qarsoon asiga dadba uma sheegin wuxuuna ilaa hadeertaan dadka hortooda ka yahay fanaaniinta qarsoon macallinkooda ugu dambeyn kunjum waxay imaanaysaa gurigeeda waxayna fiirsanaysaa fariimaha markay iskuulka imaado maalinta xigta qof walba way fiirinaysaa maadaama fariintiisa ay soo akhrisatay aad iyo aad ayaan midaas ugu farxaysaa ugu dambeyn macalinka wuxuu soo dhaweynayaa arday cusub oo magaciisa la dhaho Leon ardaygaasna waxaan ogaanaynaa kunjum inuu yahay saaxiibkeeda yaraanta waxaan ogaanaynaa inuu yahay wiilka ku kordhacaysa markay telefoon ku hadlaysay wuxuuna halkan u imaaday inuu ayada caawiyo
kadib waxaan aragnaa Kunjum waxay ku fikiraysaa Konjon inay la kulanto kadib waxay u dhaafaysaa waraaqad taleefankiisa ayay waraaqad u dul saaraysaa markuu imaado meesha kulankan waxay ku dhahaysaa waxaan u imaaday inaan wada kulanno kadib waxaan aragnaa qof inuu video live ka duubayo asagana wuu shakinaya wuxuu ku dhahay ma aqaan waxa igula hadli rabtid laakiin waxaan rajeynayaa mar kalena aniga adiga isku imaano aydan waxay ku dhahaysaa abka insaan controlkiisa ayaan helay wax walba adiga tahayna waan ogaadaa asigan wuxuu ku dhahayaa isug mar kale ayaan kulmaynaa kadib maalinta xigta asigoo fikiraya Joy waxay ku dhahaysaa maxaa kugu dhacay asigan wuxuu ku dhahayaa waan kuu soo laabanayaa kadib Kunjum ayuu gacanta ka qabanaya wuxuu ku dhahayaa isoo raac kadib meel ay wada fadhiisanayaan wuxuu ku dhahayaa maxaa dhacay aydan waxay ku dhahaysaa insaan ayaa waxaan ka ogaaday adiga inaan ka ahayn caan oona ka mid ahayn fanaaniinta tababaraha asigana wuxuu ku dhahay xal markaan kula kulmay kadib dadkoo dhan waxay dhahayeen waxaad yeelatay saaxiib cusub si wilib waxaan ku aragnay si leef ah adigana waxaad ka hadlaysaa caanimadeedii waxyaabo la mid ah ilaa kul xal waxay ku dhahaysaa aniga waan ogaaday adiga tababaro fanaaniinta qarsoon inaan ahayn waxaad igu caawinaysaa aniga inaan dadka soo dhaxgalay inaan caan noqdo sida loo ciyaaro inaan bartay waxyaabo la mid ah tababaraha runtan aniga ayaaba ka dhigayaba asigana wuxuu ku dhahayaa waayaha midaas waan sameynayaa kadib wuxuu u bilaabayaa tababar cusub iyo training cusub wuxuuna barayaa sida dadka loo dhaxgalay iyo sida dadka loola hadlo aydan midaas aad iyo aad ayuu u farxaysaa wuxuuna ku dhahayaa marawa aniga inaan noqoto qof jiljilacsan habeenkii dhanna waxay akhrisanaysaa maseedyada dadka loo soo dirdirayo ugu dambeyn subaxii markay soo kacdo waxay soo aadaysaa iskuulka iyadoo fikirsan laakiin wiilal biyo ku ciyaaraya waxay ku shubayaan biyahaas ayaan iska ilaalinaysaa laakiin meesha waxaa imaanaya Konjon wuxuuna isku dhigayaa biyaha kadib waxaan aragnaa saaxiibkeeda inuu arkay iyadoo jaranjarada fuulayso kadib wuu salaamayaa intaysan u jawaabin ayada jaranjarada kasoo dhacaysa laakiin Konjon ayaa qabanayo saaxiibkeeda caruurnimada gacanta ayuu ka qabanayaa asigan wuxuu ku dhahayaa waa inaad is ilaalisaa mar walba iska soo dhicin ugu dambeyn markay fasalka soo dhamaystaan waxay soo galayaan gudaha waxayna arkaysaa sawir laga qaaday waxayna tusinaysaa sawirkaas waxayna ku dhahaysaa aniga sidaan marawi asigan wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan kaa badbaadinaa oo kaliya biyaha iyo waxyaabahaas dadkan ayaga ayaa wax kale u qaadan oo hooshooda iska wataan kadibna wuxuu ku dhahayaa beri dadka ayaa dhaxgalaysaa waxaadna ciyaaraysaa banooni kadib Joy gabar ayaa banooniga ku dhufanaysaa iyadan tookadad banooniga ay qabsanaysaa waxayna isdhahaysaa tuur laakiin ayada yaaba dhaceysaba kadib alaabta ay soo aruurinaysaa waxayna keenaysaa maqaasiinka Joy arkay wuxuu ku dhahayaa maanta maxaad la caajisan tahay aydan waxay ku dhahaysaa ma aqaan wixii daar laakiin aad iyo aad ayaan u murugsanahay waxaan u maleynayaa qof walba ila hadla aniga inuu igu qoslayo mana rabo aniga hadda kadib inaan ciyaartaanid iyo noloshayda inaan bedelo sidaan ayaan ku qanacsanahay weyn iska oonaysaa maalinta xigtan waxaan aragnaa inay u imaanayso Joy waxayna ku dhahaysaa waan ka xumahay wixii shalay dhacay saas ay tahayna waxaan rabaa inaan isla soo qadeeno sida magaalada u soo aragto aydan midaas ayaa ku farxaysaa iyadoo faraxsanayaan fasalka ka soo baxaysaa saaxiibkeeda caruurnimo ayaa gadaal u imaanaya wuxuu ku dhahayaa waan ku faraxsanahay inaad noloshaada ku faraxsan tahay aydan wuxuu ku dhahaysaa wax walba isbedel waxaan isku dayaa isbedelka nolosha inaan la qabsado asigan wuxuu ku dhahayaa waxaan fasalkaaga ugu soo biiray waxay tahay dabeecadaada inaan wax ka bedelo laakiin waan u jeedaa inaad mashquulsan tahay aydan waxay ku dhahaysaa meel ayaan ka daahayaa weyna ka tegaysaa ugu dambeyn asiga iyo Joy isla kulmaya wuxuu ku dhahayaa Joy magacayga waa Leo Konjon saaxiibkeeda ayaan ahay hadaa rabtid inaad ku ciyaartidna waa inaad ka fogaataa sababtoo qof caan ayaa tahay kuuma qalanto aydan waa maskiin yar oo hadli karin asigan wuxuu ku dhahayaa taas adiga ayaa iska dhaadhicisay siidaa gacanta ayuu ka dharbaaxayaa kadib wuu sii deynaya meesha dhan way iskaga soo tagayaan kadib Joyna waxay farxad siinaysaa Konjon iyadoo weliba aad iyo aad ugu faraxsan midaas wayna la sheekaysanaysaa Konjonna midaas way ku farxaysaa iyadoo weliba maleysan la waxa dhacayo waxaana ku dhahaysaa farxadaada waa iyo farxadeeda waxaana jeclaystay adiga inaan bulshada kugu soo dhaxdaro aydan midaas way aamin weynaysaa subaxdii xigtana Joy ayaa arkaysaa markay la hadal isdhaadana asig lama hadlaa wuu ka soo tagayaa fasalkii ay soo wada galayaan wuxuu isdhahayaa la hadal laakiin lama hadlaayo kadib Leo ayaa gacanta ka soo qabanaya wuxuu ku dhahayaa ninkan ka fogow waa qof caan ah noloshaada yoona baabiinaya aydan waxay ku dhahaysaa maxaa kaa qusay midaas adiga mar walba nolol cusub sameeysta waxaad rabtaa inaad ii hoosiiso waxaa rabaa nolosheeda inaan hore u sii wato asigan wuxuu ku dhahayaa xurayaa tahay aad ku faraxsan tahay kadib waxay ku dhahaysaa waa qof masaakiin ah asigan aniga waxba iima dhimaayo iga fogow kadib asigoo xanaaqsanaya meesha ka soo cararaysa maalinta kale waxay isku dayaysaa inay la hadasho waxayna ku dhahaysaa igaraalna hadalkiis miyaad ka xumaatayne kadib lama hadlaa markay fasalka dhamaadan waxay soo galaysaa maqaasiin
telefoonka waxayna arkaysaa asigoo Joanna ku farxaysa waxayna ku dhahaysaa wax walba adiga lagu sameeyay haddana waxa ka jeclaatay aniga inaad sidee balanta iga qaadaad igu oofiso aad iyo aad u mahadsantahay maadaama aad jeclaysatay nolosheedana wax ka badasho waxyaabahaas oo dhan Leo ayaa maqlaa wuxuuna ku dhahayaa daartad isbedel oo kaliya aniga xitaa isbedel waan kuugu sameyn karaa kadib wuxuu ku dhahayaa Konjo waxa artid sameey aniga xitaa midaas ayaan ku faraxsanahay aydan wuxuu ku dhahaysaa labadiina waad caawin kartaa waxa rabaa oo kaliya aniga inaan caan noqdo asigan wuxuu ku dhahayaa wax walba aan kuu sameynaynaa tijaabada bilaab kadib waxay bilaabaan tijaabo qurux badan si tartiib ayay caan u noqonaysaa Konjona aad iyo aad ayuu ugu farxayaa midaas asigii saaxiibkiisna way caawinayaan ardayda iskuulka dhanna waxay isku dayaan sida iyadoo ciyaarayso kale inay u ciyaaraan qof walba ka cabsan jiran inuu la sheekaysto Joanna iyadoo midaas ka xun ayay u hambalyeynaysaa maadaama caanimadeeda tookadan boos kale loo bedeli rabo ugu dambeyn habeenkii dhan waxay fiirsanaysaa fiidiyaasheeda iyadoo aamin laasan inay sidaan oo dhan caan ay u naqatay Konjona wuxuu ku dhahay midaas oo dhan waad mudantaa Leon wuxuu barayaa ciyaar kale oo cusub aydan waxay isku dayaysaa ciyaarta inay barato ugu dambeyn Joy waxay ka soo hormaraysaa dadka oo dhan kaniiniyaal ay isticmaalaysaa Konjona markay imaado waxay fiirinaysaa kaamirada inay fiican tahay iyo in kale ugu dambeyn waxay imaanaysaa labada wiil iyo wiilka saaxiibkooda ahaa video cusub ayana duubayaan dadka oo dhan run ahaantii aad iyo aad ay uga helayaan markay hooshooda dhameystaan musqusha ay soo galaysaa laakiin ayada way suuxaysaa waxaan ku dhahaysaa maxaa kugu dhacay laakiin waxba uma sheegayso ugu dambeyn doorashada iskuulka ayaa loo geenayaa waxaan ku dhahaysaa kaniini diet balaanka ay isticmaashay ayadan jirkeeda ma xamili karin maadaama tabar dare ay ku qabto ugu dambeyn ayada ay u imaanaysaa waxaan ku dhahaysaa maxaad u isticmaashay kadibna waxay ku dhahaysaa waan cayile kalsoon dare ayaan igu dhacay sidaas darteed ayaan u isticmaalay ayadan su'aashaas dambe hay weydiinaya ku dhahaysaa sababtoo nolosheeda aniga yaa xor u ah ayadan weelayaasha waxaan ku dhahaysaa maxaad igu dhahday kadib lama hadlays meesha dhan ay iskaga tagaysaa kadib saaxiibkeeda ayaa soo dhaweynaa waxaan ku dhahaysaa nolosha dhan waxay noqotay mid sahlan qof ayaa naftiisa wuxuu ku jira rabaa kaniini laakiin midaas asiga ma ogo asigan wuxuu ku dhahay adiga waxaas ma fahmi kartid waxa ku roo inaad iska nastid aadan waxay ku dhahaysaa caanimada sideeda ma sidaanaane ugu dambeyn banaanka ay u soo baxaysaa leerayaan qaadanaysaa maalinta xigto kadib saaxiibkeeda yaraanta ayaa u imaanaa waxaan ku dhahayaa ma ku soo wareejiyaa maanta aadan way sii raacaysaa kadibna meel qada ayuu geenayaa kadib cuntada ay diidaysaa asigan si xoog leh oo afka uga gelinayaa kadibna waxay ku dhahaysaa meeshan maba ka helin waxaan rabaa meel ka duwan inaan aado kadib asiga waa soo wadaya wuxuuna keenayaa meel yaraantooda imaan jireen kadibna wuxuu ku dhahayaa farxad ayaan ku qaataa meeshan markaan imaado sababtoo xasuusaheen oo dhan ayaa ku duugan aydan way aamusnaanaysaa lama hadlaysa kadibna waxa uu imaanaya saaxiibkoodii iskuulka asaga ayaan cabaar isla sheekaysanayaan banaanka dhan ayayna kusoo warwareegayaan ugu dambeyn Leo ayaa ka tagaya labadooda ayaan isku soo harayaan isla sheekaysanayaan maalinta xig markii la gaarane Joy waxay ka ogaanaysaa sirtaasna wax kale ma ahan waxay rabtay Konjo inay sirtiisa banaanka ee keento aydan waxay go'aansanaysaa midaas inay badbaadiso markay iskuulka imaadaan ardayda oo dhan fiidiyaasheeda ay fiirinayaan wayna ka helayaan kadib waxay la kulmaysaa Joy waxayna ku dhahaysaa maxaa sameynaysaa aydan waxay u sheegaysaa inay aad iyo aad u jeceshahay sidaas darteed ay u argusanayso kadib ay soo xaraysaa telefoonka ay fiirinaysaa Konjo sida wax walba uu sheegay leedahay ka fikiraysaa waxaan ku soo dhuumanaysaa meesha maqaasiinka kadib ayada oo imaanaysa telefoonkeena ka qaadanaysaa waxaan ku dhahaysaa banaanka u bax kadibna waxay ku dhahaysaa banaanka uma baxay aydan waxay ku dhahaysaa waxaan ku dhahay banaanka u bax banaanka markay u soo baxdan way iska oonaysaa subaxda markii la gaarin waxay u imaanaysaa Joy waxaan ku dhahaysaa telefoonkiisii waxaan rabaa wax walba runta inaan Konjo u sheego aydan waxay ku dhahaysaa kuma siinay sababtoo adiga waxaad u qalantaa sidaada hore la inaad iska ahaato hadartan bahalayaa naqatay Konjo ka jeclaan wad iga qaadatay hadartan waxa artaa asiga inaad badbaadiso sidan jecelkay u argusoodan waa inaad asiga runtiisa aan sheega adigan runta sidaas lagu ogaadaa aydan way xanaaqaysaa jugaya siinaysaa telefoonka yaan dhulka dhacay telefoonka yaan soo qaadanaysaa ugu dambeyn way xanaaqaysaa Joy waxaan ku dhahaysaa midaas ma igu sameyn kartid ugu dambeyn dadka dhan ayaa fiirinaysaa sirahooda inta dadka fiirinaysan waxay ku dhacaysaa saaxiibkeeda yaraanta wuxuuna ku dhahayaa isdeji han isku day naftaadana dhaawac gaarsiiso aydan waxay ku dhahaysaa iga raal noqo ugu dambeyn way soo baxaysaa waxayna imaanaysaa meesha maqaasiinka meeshan waxaa ugu soo horeysay Joy kadib way isdhiirigelinaysaa waxayna ku dhahaysaa adiga runtaada waxa ogaatay Joy
waxay sheegaysaa inay ku jeclaatay laakiin ayadu waxay isku dayaysaa inay sirtaada banaanka keento. Joyna waxay ku dhahaysaa iyada waa runteeda sababtoo aniga waxaan ogaaday wax walba adiga tahay maadaama uu ku jeclaadayna waxaan go'aansaday inaan wax walba runta dadkan u sheego. Kadib waxay ku dhahaysaa Konjo midaan ay rabtay inaad dadka dhan ay u faafiso anigan midaas ayaan ka hortagay waxaan ka soo qaaday taleefanka asigan wuxuu ku dhahay midaas looma baahna inaad sameysid sababtoo xalayaan video duubay waxaan diyaar u ahay inaan dhigo dadka dhan ay runta u sheega aniga ayaa go'aansaday videogaasna xiligan dadka dhan wuu gaaray baris wax markay dadka imaadaan waxay ogaanayaan aniga qofkaan ahay sidaas darteed idinka ma loo baahan inaad isdagaashaan. Joy adiga waad maasantahay oo ku dhahay maadaama waxaan oo dhan aniga darteeda aad u sameynaysay aydan way iska oonaysaa waxaan ku dhahaysaa wada qaldanayaan wax ku raadinayay laakiin haddaan ogaanahay inaa sidaan oo dhan u qalbi wanaagsantaa waxaan oo dhan ma sameyn lahayn. Konjomna way oonaysaa waxaan ku dhahaysaa aniga darteeda waxaan oo dhan kuugu dhacan iga raali noqo. Konjona waxa ku dhahay adiga waxba ha ka walwalin runtan aniga ayaa hortooda ka sheegaya ardayda bari ardayda oo dhan markay imaadaan maadaama runtiisa ay ogaadeen waxay ku tuturayaan waraaqado jeexan kadibna Konjon way ka celinaysaa waxaan ku dhahaysaa waxba ha ku soo tuurina. Kadib makarafoonka iyo qabsanaya wuxuu ku dhahay nafteeda in kalsooni ku qabay wanoogahay aniga misku magacaabin inaan ahay macallimiinta ardayda qarsoon ka mid ahay laakiin idinka ayaa ii magacaabo oo idhaahdeen meeshaas ayaa lagu arkay macallimiinta miyaa ka mid tahay anigana ayaan dhahay sababtoo markaas nafteeda kuma kalsooneen hadeertaana waxaan go'aansaday inaan runta sheego. Halaha sawir waxa dhageysanayay Joyna wuxuu ku dhahayaa wax walba aad u qalantaa inaad sheegto laakiin aniga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay intaan adiga hadlay inaan aniga hadlay. Konjo ma soo baxaysaa taleefanka iyo keenaysaa meesha marka hore ka heshay waxaad buu u maleysaa nolosheeda oo dhan inuu hagaajiyay kadibna uu mahadcelinaysa taleefanka. Kadib Konjona waxay saaxiibayna siinaysaa waxaan ku dhahaysaa waan ku jeclahay asigan wuxuu ku dhahayaa midaas aniga yaa rabay inaan ku dhaho sababtoo wiligay waan ku jeclaaday waana ka qarin jiray. Kadib labadoodu way wada sheekeysanayaan ayagoo xurayana farxad isla qaadanaya maadaama marka hore kamera waxyaabahaas laga dawatay. Run ahaantii Konjon wax walba ayuu waayo oo caanimadiisa ka mid tahay laakiin wuxuu helay jacayl dhab ah iyo saaxiibo wanaagsan oo runta ku dheehan tahay. Filimkeena quruxda badan halkaan ayuu ku dhamaaday. Qisadan waxay tilmaamaysaa kalsoonida inaad naftaada ku qabto ugu horeynta kalsoonida dadka ka raadin laheeday. Run ahaantii aniga oo codkayga go'an muddo 3 biri waxa diyaarinaya qisadan sidaan u soo gudbiyo laakiin just way dhamaatay gabadheedana way ugu qaylinaysaa mac salaama.